18 sannadood ayaa aabbaha kani la daala dhacayay ilmihiisa. dhakhtar kasta waa geeyey, meel kasta waa geeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caafiyey ducadan iyo adkaartan oo alle subxaanahu wa tacaala ugu soo dhiibay markii uu akhriyey. waa idinla wadaagi doonaa ducadan iyo adkaarta, balse haddii aad igu cusub tahay beejkayga xaqiiqdoon TikTok-ga, YouTube-ka iyo Facebook-ga isoo follow gare si ducooyinka iyo adkaaraha iyo warbiximaha muhiimka aan soo geliyo aad u noqotid qofka ugu horeeya ee ku guuleysta. waan si duceeyaa rabbi oo intaan awlaad haysan way samreene awlaad khayr qabta si inta xanuunsanaysana xanuunka kor qaad, inta awlaad haysatan u barakee kuwa khayran oo barakeysan uga dhig, inta waalidkood dhintana rabbi oo naxariistana ka waraabi. alxamdulillaah rabbil caalamiin. nimcooyinka ilaahay ayay ka mid tahay in aad maanta nabad iyo caafimaad ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu soo kiciyey mar walba alxamdulillaah. dhowr iyo 10 sannadood ee ilmaha xanuunsanaya ay la daala dhacayeen ayaa alle subxaanahu wa tacaala aabbaha iyo qoyskan uu salaamsiiyey. salaada subax markii uu tukaday oo ilaahay baryey ayuu koob soo qaaday biyo intuu ku shubay uu ku akhriyey ducooyinkan iyo adkaarahan. alle subxaanahu wa tacaala ilmihii markii uu 7 beri ay u cabayey oo ugu qubeynayay alle ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa caafimaadka bixiyey oo ku caafiyey. uciidukuma bikalimaati illaahi taamah من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيوكو أخريي 100 goor sidoo kalena salliga nabiga oo 300 goor ayuuku akhriyay لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 7 goor ayuuku akhriyay. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caafiyey ilmihiisii 7 beri markii ugu qubeynayey oo cabsiinayey. allah idin barakeeyo. haddii ilma kaa xanuunsanayo maantaba ku akhri. allah idin barakeeyo dhammaantiinba guuleysta.